kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta falanqaynta. afartii sanaba mar xiriirka kubadda cagta duniyada ayaa waxay soo qaban qaabiyaan koobka adduunka oo afartii sanaba mar qaarad lagu qabto. sanadkii 1930 ayaa markii ugu horeysay la bilaabay ilaa iyo xilligan waa uu socdaa marka laga soo tago 1942 iyo 46 oo u baaqday amaba loo joojiyay kadib dagaalkii labaad ee adduunyada saameyntii uu ku yeeshay wadamada caalamka. danka ugu weyn ee ka maqan sanadan koobka adduunka waxa uu yahay wadanka Talyaaniga kadib markii uu ku fashilmay reebkii dharbaaxa uu kala kulmay wadankaasi Sweden. inkastoo ninka ugu sareeya goolalinta uu yahay Miroslav Klose oo leeyahay waxaana uu ka qayb galay koobka adduunka sanadihii 2002, 2006, 2010, 2014 waxaana loo xisaabiyay eber dhibic 70 inuu ciyaar walba gool dhaliyay. haddaba 1930 goolalinta waxaa ku guuleystay Jeremio Stabelli, sidoo kale 1934 waxaa ku guuleystay Nedeli oo 5 gool dhaliyay. Linus de Silva ayaa sidoo kale 1938 7 gool ku qaaday. Idmer Marquez Maneres ayaa sidoo kale 9 gool ku qaaday 1950. 1954 waxa uu ku qaaday Sandro Cottage 11 gool. Justin Fortin ayaa isagu waxa uu qaatay 1958 13 gool ayuu ku helay. 1962 Lionel Sanchez ayaa ku guuleystay oo isagu 4 gool keenay. 4 waxaa la yimid Daniel Bogacic iyo waliba Ivanov. 1966 waxaa ku guuleystay Osbio. Gerard Muller ayaa 1970 isagu 10 gool ku qaaday. Lazio ayaa 7 gool ku qaaday 1974. Mario Mbis ayaa 1978 6 gool ku qaaday. 82 6 gool waxaa ku qaaday Paolo Rossi. 1900 Gary Lineker ayaa 1986 6 gool ku qaaday. sidoo kale 1990 6 gool waxaa ku qaaday Salvatore Saleskeski. 1994 Kharisto ayaa ku guuleystay. 1998 Dafo Shukar ayaa 6 gool ku qaaday halka 2002 Luis Nazario da Lima Ronaldo uu 8 gool ku qaaday. Miroslav Klose ayaa 2006 5 gool ku qaaday halka Thomas Muller 2010 uu isagu ku qaaday 5 gool. 6 goolna 2004 nuskhadii ugu dambeysayna James Rodriguez ayaa ku qaaday. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta falanqaynta. afartii sanaba mar xiriirka kubadda cagta duniyada ayaa waxay soo qaban qaabiyaan koobka adduunka.